markaasa isla dadkeeda waaya waxay leeyihiin diyaaradda ma baratay haa keligaa maa wada haa dad maa qaadaa weli maya horde saas naga dhaniyo dad ma qaadi kartide haddana waxaa bilaabay inaan dad qaado oo maraykanka dhexdiisa wareejiyo markaasa leeyihin diyaarad maa weli ma wadaa haa diyaarad yaristeeda kuleeyihin ma wadaa haa xagee aadaa maraykan dhexdiisa haddee saas naga dhaniyo international pilot ma samayn kartide adee kabacdi internationalkii aa bilaabay isla same people-ka qaara weli waxay ku leeyihiin niyo ma taqaanaa diyaarad dagaal si loo wado maba barana maxaa baray cilmi dhagood waaye iyaga fiilkan aqoon qof Soomaaliya marka aad isku aragtaan airport weyn uu arko inaad adigu ahayd pilotka diyaaradda waday reaction-kooda see waaye horta xoogaa way bedelmatay midha dadka social media iga arkeen laakiin badanaa kow waxay dhihi jireen haa bilowga waxay dhihi jireen niyo pilot runa miyaa taha marka xoogaa si ugu jawaab ma gerin qofka haddaa dhaho haa pilot runa iyo pilot fake ma kala aqaani wax la dhaho pilot runa miyaa taha pilot fake baa aan doortay flight instructor waxay dhahaan inaan noqdo inaan dadka diyaaradda baro soo ka soo qaado kale adi xaliya maanta ii timid diyaarad baan ku barayaa hal saac ka soo qaado hal saac ayla duusha halkii saac ayla duushay adna waad qoranaysaa waa ku baranaysaa anigana halkii saac waan qoranayaa oo buugaygan ku qoranay ilaa 1500 saa uga gaaraya marka muddo hal sana u sii socotay dadka laakiin xoogaa ama qaara badanaa airboorada iga garto laakiin anigu badanaa waxaa isku dayaa qof Soomaali hadda arkaba especially qof oo ama maamada hooyada leeg ama aabahay oo kale ama waayeel ama qof caruur wato anaaba soo raasay oo imaana sidee falaadka ma raacaysa haa xagga u socota xagga marka waxaa isku dayaa qofka kursi fiican inaan keeno oo business class ama first class duu furan yahay gabadha flight attendant inaan dhaho qofkaas familkayga waaye inaan dawriga arkinaa laga yaabaa Soomaalinimada le bas qofkaas familkayga waaye biyay wax u baahdaan si ma garata laakiin markuu ku arko wuxuu ku dhahaa fake baa tahay marka kood fake baa tahay xagee wax laakiin laakiin taasna waxay keenaysaa ani badanaa dacad ahaan marka xalli ku warramo shaqadan waxaa u arkaa shaqo inaan samaynayo ilaa maaha wax kaloo weyn ilaa wix sanado markaa samaysid waa la adiga kaaga waaye adiga fiilkan aad ku su'aal maya su'aal fiican waaye markii aan leysinada ani qaatay badanaa markaa leysinada qaadatid again adduunka dhan badanaa waa wax iskugu mida sababtoo diyaaradaha adduunka dhan iskugu gudbaan marka waa isku wada mid markay sharciyadaas u kala imaado leysinada markaan wada qaatay adi waxaan haystay 250 saacadood markaa 250 saac haysatid waxaa lagaaga baahan yahay si aad dadka u qaadid oo diyaaradaha waaweyn wadid 1500 marka 1500 dhowr si baa lagu gaaraa waxaa lagu gaari karaa company yar sida maaragtay dhulalkan hadda western world waxay leeyihiin helicopter oo news ka soo report garaysa iyo traffic ka soo hadasha iyo waxaasoo kala wadi kartaa ama waxaa yeeli kartaa haddii qof taajir ku dhalay ama family taajir ka imaatay diyaaradii ayaga leeyihiin u wadi kartaa ani laakiin waxaan wada oo flight instructor ah inaan dadka baro kabacdi sanad aan baranayay sanad kale tan dad aan baray diyaaradda markaas kabacdi waxaan bilaabay inaan diyaaradaha xamuulka oo dadka inaan qaado oo aan ka shaqeeyo okay marka kuwii dadka u kala baxaya labo mid inaad ka Mareykanka oo aadid Dubai oo kale ama aad Switzerland oo kale aadid sida hadda falaadada aad samaysay waaweyn iyo mid state-yada teebaad ku hormartay kan state-yada ku hor labadooda mid ka rabtay aadi kartaa aniga laakiin markaas waxaan ku hormaray kan localka ah sababtana ku sheegay sababta waxay ahayd 2 sano ba si xun isku guba oo every morning 6 in the morning ilaa hameenkii midnight aan diyaarad iyo airport taagnaa marka ma rabin weli inaan laba sano marka sanadkii aan baranayay iyo sanadkii kale aan dadka barayay marka si aanan gurigayga uga maqnaanin oo gymkayga iskaga aado oo kubaddeeda iskaga ciyaaro domestic basa waxay bilaabaan Canada Mexico iyo Mareykanka la joognay 4 bari aan maqnaanay oo soo wareegay waa soo laabanay taas waxaan sameeyay adi muddo 2 sano iyo bar ilaa 3 sano sameynayay last yearna markaan ku imaanay waa aniga ka sheekaysanayna markaas waxaan bilaabay internationalka inaan bilaabo oo hadda badanaa 90% international flights basaan sameeyaa okay so meeqa sana u dhaxaysay inaad international flight bilowdid iyo intaad
maalinkaad bilowdayna diyaarad baratid meeqa sana u dhaxaysay waxaan rabaa waa adaha ما هو سؤال فعلا 4 سنة u dhaxaysay laakiin dadkii rabo hadda ka soo qaado kale adaa rabtid oo aad dhamaysay 1500 haysatid isla maantaba waa bilaabi kartaa international da u baahatid ani laakiin 4 sano u dhaxaysay anaa saa rabay okay laakiin waxa jirta fikira qofkii uu aaminsan yahay isagoo laga yaabo inuu hal sano markuu saa uga soo baxayba uu aaminsan yahay horaanka koraa diyaarada international waxaas maxaa ka jira dadkeena waa fahansanaa experience u baahan experience horta midda hadda ka dhawaajisay weligaa dadka kaama deynayaan kasoo markaan baranayo sheeko yara kaaga sheekeena markaan kow baranayo dadka waxay dhihi jireen social media kuma jirin isna ma lahayn Facebook ma lahayn waxaan dhan hadda igu horeyso marka kow waxay dhihi jireen magaalaan deganaa magaalada dadka waxay dhihi jireen warniyo diyaarada barataaya la yiri maxaa ka jiro haaniyo waan bartaa kaliya ma wado maya wardi hadda saar naga dhexbay ku leeyihiin kaliya ma wadide oo iska aamusa diyaaradii ilaa markasta qofka kula socdo waa baranaysa qofka inta ku fadhiyo oo diyaaradii ku dhaay inta u leexi waqtiga ka soo wareegtay si daacada ugu jawaabay ha ari daacadina ka taa u maleena laakiin amar dhigeyso hadda waxa diyaaradii kaliya inaa wado waa diyaarad yar 4 qof qaado laakiin airportka agtiisa wareegay magaalada degan tahay markaas isla dadkeeda waxay leeyihiin diyaaradda ma baratay ha kaliya ma wado ha dad ma qaadaa wali maya horde saas naga dhaniyo dad ma qaadi kartide way si dheereynaya ka bacdi haddana waxaa bilaabay inaan dad qaado oo maraykanka dhexdiisa wareejiyo markaas ilaa diyaarad ma wali ma wada ha diyaarad yiristeeda kuleeyay ma wada ha xagee aada maraykanka dhexdiisa hadde saas naga dhaniyo international pilot ma samayn kartide adee ka bacdi international ka bilaabay isla same people ka qaar wali waxay kuleeyihiin niyo ma taqaanaa diyaarad dagaal si loo wado ma barana maxay baray cilmi dhagood waaye iyaga fiilkan aqoon ma laha waxaan okay qof Soomaaliya marka aad isku aragtaan airport weyn ama uu arko inaad adigu ahayd pilotka diyaaradda waday reaction-kooda see waaye horta xoogaa way bedelmatay midda dadka social media iga arkeen laakiin badanaa kow waxay dhihi jireen ha bilowga waxay dhihi jireen niyo pilot runa miyaa taha marka xoogaa si ugu jawaab ma geerin qofka hadaa dhaho ha pilot runa iyo pilot fake ma kala aqaan wax la dhaho pilot runa miyaa taha pilot fake ba sida daraaddeed baan adiga kula sheekaysanaya waayo qof kasta waxaa jirta fiil uu ku takhasusay waxaa jirta adduunyada waxa la dhaho professionalism xirfadan adag ku takhasusay qofka dhakhtarka rays kuma amar dadku daaweynayay waxaan oo dhan maalin kastuu sameeya lawyerka sidoo kale pilotka sidoo kale laakiin pointkaas aan soo laabanaya aan rabaa inaan wax ku darsado Soomaalida markay ku dhahayaan nihow adiga run ma tahay been ma tahay goormee diyaarad weyn wadaysaa goormee diyaarad yar wadaysaa goormee wax samaynaysaa hal jirta oo waxaan u maleynayaa hadda kahor inaan adiga si private kugu mention gareey oo dadkeena waxa ka dhintay self esteemkoodu wuu hooseeya marka wuxuu aaminsan yahay qof Soomaali waxaan ma noqon karo waxaan gaale loogu talagalay point fiican way pointiga sheegtay laakiin midda saxda ah waxay tahay marmar dadku u garaaba oo waxaan dhahaa dadka may arkin qof Soomaali waxay arkeen shaqadan A iyo B ka shaqeeya shaqadan kale may arkin laakiin midda kale hadda TikTok-an marka furinayo xataa waa ku sheegay waanay ka wada hadlaynay adaab igu dhiirigelay dadkan wax tus adu ahaa ana TikTok lahayn laakiin pointiga ka wata waxa waaye dadka markay dhahaan dada marmar waxay isoo qoraan xumaan ani uma waqaato xumaan war diyaarada qof Soomaali wata ma raaceen marka isaga ka turjumaysa ma kama wado adiga ma inuu ku dhibaataynayo laakiin isaga aaminsan waxaan aysan macquul ahayn oo waxaan lama gaari karo waxaan gaalada loogu talagalay niyadooda marka isaga waxa laga yaabaa qofkan inuu commentiga MBC daacada uu isagu arko laakiin dhinaca waxa uu sameeynaya waxay tahay waxa waaye waxaan lama gaari karo waxaan macquul maaha waxaan suurtagal maaha fariintu diraya taas waaye so niyad jabna marka Soomaalida aad fiirisidna waxaan u soo laabanayaa su'aal kale oo taa daba socoto marka Soomaalidu Mareykanka soo gasho ma qabtaa shaqooyin professional adi sidee kugu dhalatay inaad professional noqotid oo aad ka leexatid wadada cilmi dhagoodka waayo qofka Soomaaliga ka kuma laga keenaa 4 bari ka hor maalinka lixaad wuxuu qaatay CDL buu qaatay waa truck driver waaye wuxuu ku leeyahay ana magaalada xaraan ku haysta wax uu kala og yahayna ma jirto
sida aad sheegtay waa horta aniga waxa igu dhaliyay markaan laabto run ahaantii waaye hooyada iyo aabahay labadaba haddii aan maanta dhaho taxi driver aan noqonaya weliga imay dhihin maxaa u noqonaysaa waxay leeyihiin okay haye gaariga taxigaa kuusoo gadaynaa ama gaariga taxigaan kuusoo qaadaynaa kabacdiyaa laga yaabaa inay dhahaan ma taxiga iska daysidoo saa samaysid marka waxay ka imaadaa qofka waaridka hadda waaridkayga markaa u sheego diyaarada rabaa inaan barto weliga imay dhihinin maxaa diyaarad u barane iyo ama shaqo ku weysaa iyo waryaa diyaarad see u dhaaf hebelaa taraa koray oo aan aqaanaa oo boqol ku sameeyo war waxaan jooji iska dhaaf laguma dhahaayo waalidiinta qaar laakiin iyaga dadka kale qofkii wuxuu rabaa inuu ku sambal gareeyo qofkan traaga wada ama qofkan amazonka ka shaqeeya wuxuu ugu sheekeeyo oo kale ama daycare furo kale la iska kaaleeya iska taqaana dadkeena talada way badan tahay hadda midii traag ayaan ka hadlaynay traag oo kale hadda maalin ma aqaani qofka wuxuu soo weydiiyey lacag meeqa pilotka u qaataa su'aashii aan ka soo jawaabay dadka badanaa information ahaana ani u siiyey igama ahayn wax kale dadaa waxay soo qorayeen traaga ka lacag badan okay ama ha ka lacag badnaato ama ka lacag yaraato pointiga waxaas maba ahaba qofka wuxuu u jecel yahay uu rabo ana haddii maanta la dhaho diyaarada waxay taallaa soomaaliya geeskeeda kaale ka shaqee lacag la'aana ku shaqee haddaa inta shaqo ka waayo intaan aadaa diyaaraddaas ka shaqaynay sababtana waxay tahay wixii waa wax ani aan jeclahay ma garata maaha inaad dhahdid lacag waxaa la qaataa 100 iyo inta iyo waxaas horta lacagba lagama fekero wixii adaa la isla fariisto waa la isfiiriya waxaa dhaha maxaan jeclaha kabacdi markaa su-aasha adi isweydiisid wixii waa la dabagalaa hadda sida hadda kuu sheegayo kale aniga family taajiri kama dhalan lacag ma ka dhalan waxaasoo dhan kama dhalan keli wixii anay ugu dhasheen wadadeedina waa u mara intaas basay dadka isdheer yihiin meeshaa rabta adduunka ka joog hadday wixii kugu dhashaan xirfad kalaa baran kartaa hadda kasoo qaadoo kale soomaaliyaaba joogtaa ama kenya baylad ma haysatid lacagta lagu noqdo waxaa samayn kartaa makaanigaa noqon kartaa oo diyaaradda dhinaca waddada le lugta soo gashan kartaa kabacdi dad diyaarad haysto dad diyaarad baro waxaasaa barani laynkiina waa ku jirtaa laakiin mar kasta ani talada waxaa waaye lama fiiriyo lacagta taraag driver meequu sameeyaa iyo taraagga waa qof aad shaqo ka shaqaynaysid laakiin haddii beri suuqa wax isbedelo sida haddoo kale maalinta hore baan ka hadlaynay last week maraan hadlaynay taraagga suuqiisoo kale waa hoos waa shaqo fiican shaqo xun ma aha laakiin waa shaqo isbedelaysa soo taasoo kale waa inuu qofkii la socdaa laakiin mid kalena way jirtaa oo ah Soomaalida Mareykanka markay soo galaan uma fakaraan si professionalism iyo si skill ku dhisan yahay ee waxay u fakaraan maxaan maanta wax ka cuni karaa waa hadee markii kow intaan qofku soo bixin waxa ku jirto lacag hadee markii hore qofku ku jiri lahayd haddaan Mareykan tago ama haddaan Yurub tago ama haddaan jaanis u helo waxaanan barani saanaan samayni kali aynu ku jirin haddaan Mareykan tago lacagtaanan samayni qofku gaari karaa because sababtoo taraaga lacagtii roobaha qofkaa sameeyo rag ka taajiri way jiraan rag sanado waday oo shaqadooda jecel way jirtaa taraaga laakiin badanaa shaqo ma ahan lagu daaho 3 sano 4 sano qofka markuu wado wuu ka daali because maalintii markay dhammaato 11 saac gaari wadaa oo waddada indhaha kama qaadi kartid laakiin wixii hadaa jeceshaa oo weligaa gaari wadi jirtay qofku wuu samayn karaa ma garata laakiin uma malaynayo Soomaalida ragga badankooda ragga dhalinyarada taraaga koreynay jecel yihiin jacayl ka tahay ee waxay ka tahay intee quick pack ka helaya halkee ka helaa lacagta ugu dhaqsaha badan quick fix buu qofka okay labadii sano aad waqtiga ku bixinaysa waxaan inaad baratid